agaasimaha madaxtooyada Soomaaliland Maxamed Cali Bile oo ka qayb galay shalay tole munaasabad qalin jabid ah oo dufcadii 8 ka qalin jabisay jaamacadda Burco ayaa talooyin wax ku ool u soo jeediyay dhalinyaradii ka qalin jabisay jaamacadda Burco iyo kuwii kale ka soo qayb galay isagoo ku dhiirigeliyay markay jaamacadaha dhameeyaan inaanay shaqadoonkooda ku koobin dalka gudihiisa ee inta yar yihiin ay ka warkeenaan adduunka isagoo Xuseen qolqol joognimadu oo la jeeday dhalinyarada aan tahriibin ee dalka baaqiga ku ah in hadda wixii ka dambeeya aanay noqon kuwa ay la hadho qolqol joognimadu qolqol joogkan noqonina jaamacadda Burco waad ka soo baxdeen laakiin sadde Burco inaad fadhidaan oo shaqo ka doontaan qasab maaha wadanka dhexdiisa koona ilaa koona halkii shaqo laga heli karaba tag waliba wadanka hadaad sii dhaafi karto wadamada jaarka tag hadaad sii dhaafi karto meel kale u shaqo doono qolqol joognimadu hoos bay ku dhigaysaa waxa weeye meel kasto ay nolosha kula gashay waliba inta da'diina u dhaxayso 20 jir ilaa 30 jir khatar badan qaado oo horumar samee oo meelo badan u shaqo tag oo wax kasta isku day gobolka Togdheer waxa uu kamid yahay gobolada ay ragaadisay shaqo la'aanta baadsan in badan oo kamidana ay ku dhamaadeen badaha Liibiya hooyooyin badan ay ku goblameen agaasimuhu inkastoo talooyin wax ku ool u soo jeediyay dhalinyaradii qalin jabisay kuwa badan oo kamid ahaa waxay u fahmeen in agaasimuhu dhiirigeliyo maadaama ay shaqo la'aan jirto in dhalinyaradu ay ciribta wax ka dayaan halka ay shaqo ka gaari karaan ba agaasimaha madaxtooyada shaqadii madaxtooyada ee loo igmaday ma ahan mid wadadeedii haya waxaan ka in dhalinyaradii uu baahnaa inuu dhiirigeliyo yiraahdo dalkiina ka shaqaysta aad wax u soo barateen inuu yiraahdo dalka iskaga taga oo meelaha wareegaalaysta oo dalalka ajaarka iyo caalamka u tahriiba waa mid aanan meesha qaban waxaan kaloo idan aan ka xumahay isagoo aan madaxweynaha wakiil ka ahayn oo aan madaxweynaha soo igman inuu yiraahdo waxaan iskaga sidaa madaxweynaha salaan iyo hambalyo madaxweynahana uu warsaxaafadeed ka soo saaray inuusan ka wakiil ahayn uusan soo igman salaanna uusan u soo dhiibin uu isagu iska yidhi hadalkaas ma wanaagsana ardayda qalin jabinaysay ee doonaysay inay ku dhamaysato wadankooda waxbarashada ayaa waxa uu ku yidhi waxa wanaagsan inaydaan noqon qolqol joog aad noqotaan qurba joog sababtuna ay tahay inaad dadka wadanka iskaga yaacdaan runtii ardaydii kelmadda aad baan uga raali gelinayaa inay wadankooda wax ku barteen ka tagaana suurtagal ma aha oo isagaaba wax ku barteen wax ku qabteen laakiin waxa weeyaan de kelmadda in nin mas'uul yiraahdo ama uu yiraahdo waxa weeyaan anigu weliga intan CV qaaday shaqo lama tagin waxa weeyaan wuxuu noo cadeeyay talaftarkeeda inuu la soo shaqeyn jiray dawladda Soomaaliya dabeetana ay taa macnaheedu ahayd inuu haystay dawlad wanaagsan oo yacni shaqadiisa iyo waxbarashadiisaba meel ku gafayn jirtay taas waxay ceeb ku tahay dawladdu madaxda ka yahay ama mas'uulka ka yahay ayaa uu meel kaga dhacay oo leeyahay yacni dhalinyarta waxba loo qaban kari maayo shaqana la siin kari maayo wuxuu man u aragnaa ninkaasi inuu dawladdiisana aanu waxba u tarin dhalinyartii uu maalinta hambalyeynayna aanu waxba u tarin uu yiri wadanka iskaga taga oo ha noqonina qolqol joog waxaad noqotaan qurba joog waxaan markaa leeyahay qolqol joognimada qolqolka dalkaygii baan joognaa agaasimi ciidaydii baan joognaa magaaladeydii baan joognaa markaa ma waxaad leedahay tahriibi oo ka yaaco wadamada kale u shaqo taga bal taa noo soo cadee waxaan leenahay horta ilaahay baa shaqada bixiya laakiin dhalinyarada kada niyad jabka iyo moraal jabka iyo tahriibkanaad ku dhiirigelinayso waayo hadalkaagaasi tahriib buu iska tahriiba meesha wax ma yeelanay buu u dhigay waa Cabdirsaaq Koronto telefishinka caalamiga ee Saab magaalada Burco